marka waxa macquul in booska cadaadiskaas oo kale looga saaro way dhici kartaa wallaahi de aniga xilli markaan joogay saameyn igu yeelatay arintaas anigoo isku arkaya inaan shaqaynayo oo u shaqaynayo qaranka oo dadaalayo oo baarlamaankii baa leegaga yeeray taliyii ugu horreeyay waxaan u maleeyaa 3 mar baarlamaanka leegaga yeeray waxa la iigu yeerayna waxay ahayd waa la ogaayay xasan sheekh baa la rabay marka in xasan sheekh la weerar rabo marka anaa noqonaya marka ciwaanka meelaha qaar hadda marka aragtideeda waxaan isleeyahay marka maadaama arintan ay ku soo wajahday aniga de maadaama ay soo wajahday oo siyaasiyiinteena xataa ay dadkii ajnabiga ah nagu dacweeyeen ay hebelo lagama adkaa karo xasan sheekh ninkaasoo meeshaas jooga janaalka oo meesha jooga amba ma ogta oo xitaa gaaladii ay tashwiish lagu furay wixii anaga nagula sameeyay waa naga nabra badan kan saas aaminsana ninkan anagoo nagula aqoonin inaan campaign madaxweyne ka soo shaqeynay anagoon siyaasadda dadkii nala shaqeynay ay ogyihiin inaan siyaasadda isaga leexi jirnay hadiiba cadaadiskaas hadda asiga hadda waaba naga nabra inuu naga nabra weynaado waa wax iska maaragta Soomaaliya xaalad kala guuray kale saadar amniga dalka xilligan maxaa ku tilmaami lahayd maadaama aad tahay mas'uul amniga ka soo shaqeey amniga dalka xilligan waa xilli xasaas ah horta marxaladan oo kale oo dawladina mandatekeeda dhacayo maxaan ku iraahdaa doorashana soo socoto nimankii lala dagaalamayna aan weli laga adkaan wixina siyaasad problem ka dhacdana oo dhici karo amniga xaalad xasaas ah ku jira marxaladda hadda aan joogno amniga dalka waxa lagu tilmaami karaa marxalad xasaas ah waxaan ogahay in magaalada xamar hay'adaha amniga jooga ay dadaalayaan oo khidado badan iyo qorshooyin badan ay soo kordhinayaan laakiin haddana waxaan isleeyahay tubbaa ku furan magaaladii tubbaa ku furan webiyaa ku furan dhaqdhaqaaqi oo waxaa aad u yar ciidamadii bannaanka ka raacdaysa lahaa waa arkaa ciidamo danab iyo laakiin howlgal guud oo ballaaran oo macal amisom macal ciidamadeenu galayaan oo nimankii lagu caburinayo arrintaas inaysan jirin darteed magaalada khatar badan ku soo wajahnaa kara gobolada muhiimka ah oo magaalooyinka waaweynka ah oo dalka khatar ayaa ku soo wajahnaa kara marka waa marxalad xasaasa oo xilligeeda soo socdana uu khatar xumbaarsan yahay una baahan in de aad maanta looga foojignaado oo wax badan laga fikiro oo sidii loo dhaqmi jiray si ka duwan loo dhaqmo oo budget iyo howlgallo dheeri loogu talagalo maxaa ku soo haray arrin kale oo dhinac kale ee xasaasiga ka leedahay waxa waaye waxa sahlan in siyaasadii amniga isdhex galaan haddii xilli doorasho lagu jiro hay'adaha amniga oo madaxweynihii xilligiisu uu gabagaba yahay oo asagu amrayo siyaasiyiinta kale waxay ku aaday karaan in ciidamadii amniga iyo ciidamadii iyo loo adeegsan karo marka ma madaxweynaha adeegsan kara mise siyaasiyiinta eedaas keeni kara waa xilli eedaas u sahlan tahay in la sheego xilli madaxweynaha la aaday karo oo wax jira iyo waxaan jirinba lagu aaday karo in la siyaasadeeyay oo loo amnigi siyaasadeenayo waaye marka macnaheedu yay u tahay favor marka waxay favor u tahay raggii cadowgii la dagaalamayay in Soomaalidii ka soo horjeeday oo siyaasi iyo mucaarad ay lahayd ay amnigi sida uu sugmay isku haystaan oo hay'adaha amniga sugaya qaarkood ka shakisan yihiin waxay u tahay waxay guul u tahay cadowga ka soo horjeeda marka waa xilli eedana xasaas ay tahay arinta ay sahlan tahay tusaale yar anaga waagii waxyaabaha aniga inaan xil ka tago madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan maalin u tagay markaa waxaan ku dhahay madaxweyne dalka doorasho galaya aniga inta markaan xilka ka tagay ka hor muddo adiga 3 bil 4 bil ka hor maalin xafiiska ugu tagay waxaan ku iri xogo badan baan haayay markaan aruurinay xogaan haay waxay ahayd siyaasiyiinta magaalada jooga inay dareen qabaan taliyaha nabad sugidda maanta nabad sugidda jooga wuxuu qaarkood waxay ku tashanayaan in la isdagaalami karo oo doorashada lagu dagaalami karo marka meel kasta oo madaxweynihii ay xijihayaan dabcan ay target u ahayd waxa dhacda marka
nin siyaasi ah soo xaalad u abuuro oo hadda dawladdan hadda joogto wasiir ka ah baa wuxuu sameeyey shirow abaabusho hotel odayaal iyo dad siyaasiyiina ayuu u yeeray ninku marka wasiiru ahaa laakiin markaas wasiir ma ahayn laakiin wasiiradii oo markaas jooga qoladii ka horeysay ay bedeleen buu ahaa ciidan anaga aan siinay oo nabad sugidda ahaa oo dharkii nabad sugidda lahaa oo aan siinay oo waardiyeynayay ayuu wuxuu yidhi markii oo xafladdu ay meel fiican marayso oo isku dhacdo noo imaada shirka naga joojiya odayaasha jiidjiida naga daadiya maxaan ku idhaahdaa cunnada iyo waxyaabaha meesha maaragta noo yaalla qolada dee kaamirmaanana wuu soo watay wuxuu yidhi duuba raggaan waxay samaynayaan ma duubay meeshii uu shir jaraa'id ku qabtay wuxuu yidhi xasan sheekh iyo dee dawladda dhan inaysan meeshaan dawlad ka jirin ciidamada nabad sugidda waa kuwaasaa dadka shiraya ka shir la'yihiin waa kuwaasaa nala arka maanta waa dadka uu duubayana waa ciidanka isaga waardiyeynayay oo masgaraad u soo geliyey marka dee dadku waxay arki jireen ciidamada nabad sugidda masgaraadda oo magaalada ku daadsan dharku waa isku dharki wasaaradda gaashaandhigga anigoo joogaa la isoo wacay waxaa la yidhi dee meesha buuqaa ka jira meeshaan guri wuxuu ahaa ku yaalla safaaradda turkiya agteeda yaa waay wasiir hebel ayaa shir jaraa'id qabtay hay-addii nabad sugiddaana soo weerartay annagoo shir ku jirna waa kana waxaan soo wacay taliyihii gobolka war waxaan idhi meeshaas howlgal ka samayseen maa jira dad shiraayo hotel ugu tagteen maa jira ma ogi waxaan wacaa taliyihii degmada hodanaa la soo wacay maxaa ka dhaca la yidhi degmadaada hotelkaas maxaa ka dhacay ma ogi waayo seminaaraanba ku jiraa oo dad seminaar ku jirayoo uu ka mid ahaa eelaboorka agtiis bis taliyihii baan amri siiyey waa isoo wacay wuxuu yidhi taliya annaga maahin meeshaasna wax nabad sugiddu ka fulisay ma jiraan taliyihii gobolkaan amri siiyey waxaan idhi bax hoteelka tag igala soo hadal wixii aad aragtay iyo dadkii soo warso hoteelka dadkii joogay dadka hoteelka ownariska ah meeshii markii la tegey waxaa loo tegay dadka hoteelka waxaa la yidhi maxaa dhacay hoteelka ciidan nabad sugidda ayaa maxaan ku idhaahdaa sidaa yeelay ma taqaanin maya maadaama afka ay u xiraayeen ma gara karaan laakiin waxay garteen calaamadaha qaar mid ka mida oo shaatigiisii labiskuu sitay oo meel ka mida ka jeexnaa midkaasaa ka mida milkilii hoteelka baana dhahaya kiyaa la soo qabtay markii la soo qabtoo la baaray wuxuuba noqdaba ilaaladii wasiirka war maxaa waaye sidaan war anaga wuxuu yidhi wasiirka amarkana siiyey hebel iyo hebel iyo hebel anigaan ahayn xalaa hawshaana loo soo diray dawakaa wasiirku waxaan moodaynaa shaqo u haysta marka waa soo wada xirnay wasiirkii baan wacnay waxaan dhahnay wasiir maxaa dhacay dadkii adiga staff ku ahaa waaye waxa soo dadkan adigu staff kuma ahayn wasiirkii de waagiyaa ku bariyey maadaama uu wasiirkeenni ahaa oo nin oday ahaa maana lama fadeexin waxaan dhahnay wasiirow waxaasu hay-adaha adigaa iska leh waxaasoo kale marka waa sad-a baa la yidhahdaa sad-up operation waxaasoo kalea dhici kara aniga marka waxaan is leeyahay wax badanna way dhacaan waxaa dhacday ra'iisul wasaarihayna xilligaa joogay waa sax inuu wuxuu ahaa musharax wuxuu u arkaya anigu haddii aan sii joogo inaan u noqon karo musharax kale waxaan ogahay ra'iisul wasaarihii inuu ajnabiga la hadlaayo u dhahayay taliyaha in xilka laga qaadaan rabaa igu caawiyo in taliya xilka laga qaado marka waa musharaxi waa dawladdi marka iska dhaaf kuwa mucaaradka ah kuwa dawladda iskula jira ayaa markaanoo kale siyaasaday kara marka saaxiibkay waa suuragal wixii ana igu dhacay inay igu dhacaan inuu iga raganimo bato oo wixii asiga ka soo horjeeda soo xirxirana suuragal waayo mar laga joogo bilooyin Facebook waxa ku soo qortay wiil aad adeer u tahay askari ka tirsan ciidamada dawladda uu dilay waxaana dalbatay in cadaalad la horkeeno askarigaas ma lahayaa ma soo qabtay askarigaas waa la soo qabtay waana la soo xiray ku mahadsan yihiin dawladdu waa ku mahadsan tahay hay'adaha amnigu dabcan waana la xaliyay arintaas oo si oo dadka askariga wax dilay iyo wiilka la dilaba dad waxay noqdeen dabcan ahla marka sidii Soomaalidu ahla wax ku xalin jirtay ayaana lagu xaliyay dadka agaasime ama ra'iisul wasaare ama wasiir
ka bilaabaya madaxtinimada oo la magacaabayo caqabad intee leeg ayay ku noqon kartaa institution ama dowladnimada waa mahadsan tahay keenan su'aal aad u fiican waay waxyaabaha aan u soo joogay markaan dib u eego oon dib u xusuusto aad ayaan u xanuunsadaa inta dadka noocaas dowladnimada ay duminayaan ayaa waxaa ka badan inta nimanka cadawga naga soo horjeeda ay duminayaan dowladnimada qaarkood maaha inay xun yihiin maaha inay xumaato ula jeedaan laakiin dee fahamkaas sidaa ka ah nin taxi waday ku wada London iyo mid dukaan ku maarta ii sheeg ku lahaa South Africa iyo mid ku lahaa dukaan kale maxaan ku raahdaa South Sudan iyo markaad inta soo qabato aad wasiir ka dhigto dowladna oo weligii ka soo shaqeyn qofkaas shaqadaas sameynaya mas'uuliyad darro weyn waa horta qofka madaxa waxa sameynaya waa mas'uuliyad darro weyn qaladaadka marka arintaas maarta ama culaysyadaas ka yimaada caqabad inta lagu noqon kartaa marka dowladda badan waay mas'uuliyad darrada labaadna waa qofka aqbalaya soo weligii dowladnimo ka soo shaqeyn qofka macnaha mas'uuliyadda oo qaadaya ma fahansana waxyaabo badan oo dhacan ogaaniga inta badan khaladka waxaa noo muuqda siyaasiga oo wasiir iyo wixii ka horeeya ka dhaca laakiin nooma muuqdo khaladka wasiir iyo agaasi waxa ka hooseeya agaasime iyo waxa ka dhaca dowladdu meelaha ay ka dhimato ama ka noolaatana meelahaas waay maadaama aan de intelligence ka shaqeynay intelligence aan ka shaqeynayna oo ahaa kaliya uusan ahayn shabaab in la bursado iyo ajnabiye hay'adaha dowladda sida shaqadooda u socoto iyo caqabaadka haysta aan xog ka aruuri jirnay xogtaasna dadka mudan aan la wadaagi jirnay amba wasiirka ama dadka sareeya ra'iisul wasaaraha waxa weeye waxaan ognahay wax badan oo soo baxay waxyaabaha dhaca waxa kamid ilaa hadda aan ognahay khalad wasiir yarga wasiir warqad yar oo saxiixay oo khalad ahayd Soomaaliya hadda waxaan ogahay in la dacweynayo oo 700 milyan oo dollar lagu dacweynayo wararka aan hayo maxay ahayd waay Soomaaliya dal waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa aan dhisnay institutionist dalaaliin badan oo dawliga jira waxa ku imaanaya wasiirka maanta marka laga dhigay qaarkood waxa uu imaanaya niman dhahaya lacag Soomaaliya u taala oo hay'ad hebel ay haysaba jirta adiga soo ma qaadi kartid adiga Soomaali aan kuma dooran kartid wasaaraddaada lacagtaas iska leh aniga raba inaan lacagtaas soo qaado warqadan ii saxiix wax kugu bedel warqadan marka ii saxiixdo marka maxaa iga bedelanay aniga waxaan keenayaa lacagtaasan adiga ku keenayaa lacagtaas markaan adiga ku soo daayo aniga commissionka fulinta howlahaas ayaan qaadanayaa ninkan wasiirka waa nin cusub ma oga waxa ku hoos jira ma garanayo challenge-ga waxa laga inay la fiicnaato warqad iska saxiix nimankaas warqad saxiixan oo dawladda Soomaaliya haystaan hay'ado kale ku baryayaan milyanisa looga qaadana lacagahaas milyaniska waa deyn Soomaaliya lagu soo dalacay marka wax qaarkood dib loo arkina laga yaabo tobanaan waxaan ogahay hay'adood oo wasiirro kuweena ay wax u saxiixeen oo aan dib loo arag kuwa kale Soomaaliya waxa laga yaabaa hub dawladaha kamid ah Soomaaliya hub siinaysa macnaha intaas 5 milyan 6 milyan aan idin siinay hub ku soo gata marka dawlad amba la soo heshiiyo dawladda la soo heshiisan hubka dawladdaasna lacagta u shubaynaa leeyahay qaarkood waxa dhacda safiiradii dawladaha Soomaaliya lacagta siinay baa waxay la heshiinayaan wasaaradihii wasiirkii u tagayaan waxay leeyihiin orniyo lacagtaas dawladdeenu ay ogolaatay oo Soomaaliya la siiyay oo hub inay ku soo galato rabo dawlad hebel ayaa hub fiican haysa marka waxa waaye warqaday soo qoranayaan shirkadda oo dawlad hebel shirkadda hubka oo dawladdaas warqaday soo qorato saxiix si dawladdeeda aan warqad ugu qoro dawladda Soomaaliya warshadaas amba shirkadaas la heshiisay u soo shuba waxa dhacay marka waa kiis dhacay ninkan marka safiirka waa dalaal wuxuu rabaa shirkadaas hub ay iska gubi rabtay oo aan lagu shaqay karin ama dheedkiisu dhacay ama ruujinaystay si ay u bixiyaan rabaan wuxuu leeyahay hubkan ana idinka qaadaya waxaan kaliya lacag aan soo gelinaa marka meeshii qoraga ka marka uu 500 lagu soo gadi lahaa $50 bay xisaabinay shirkadda ilaa waa qashan in awalba laga qaado ay rabtay safiirka marka dhiilkaas soo gala wasiirkeena waxa leeyahay lacagtan commissioner noogu jira commissionkaas ku leedahay waxa laga yaabaa marka dawladdii Soomaaliya caawisana 5 milyan ay ka baxdo
soomaaliyana hub saxa uusan soo gaarin arrintaas waxaas laga shaqaynayana ay tahay safiirkii waddanka joogay iyo wasiirkeennii oo dhiilba ma maqasheen qoryo cali shucaa la yidhaha dalka la keenay waxaasaa lagu keenay waa qoral laga xabaa daakirta gubanaya oon lagu dagaalami karin waxaan arkaya maalin dhexaas puntland oo ka cabanaysa oo dhahaysa dowladda soomaaliya hub oo markii ay la dagaalamayeen nimankii buuraha ku jiray marka waa badan yihiin wax badanaa dhac marka waxyaabaha aan ku talinaya marka waxaa ka mid a dadka professionka marka loo dhiibaayo khibrad kama maaranto wasiirkoo kale xataa wasiirka waxaa ka daran agaasimaha guud hadduu cusub yahay waa halis dadka marka aan dowladnimada ku soo jirin ee loo dhiibaya qaarkood waxay ka noqon kartaa ogaal ayagoo og wixii waxay ka noqon kartaa dadnimo xumo marka arrimahaas waa arrimo dhib badan arrimahaasna aad in looga fiirsado waxyaabaha dalkeena dib u dhigay waxaad arkaysaa balcadaan waxaan ka soo qabannay daawo dhacday oo beer lagu abuuraayo lagu buufinayo waagii aan xafiiska joogay balcad beer ka mida beeraha balcad waa tagnay waxaa keentay shirkad hay-adaa keentay hay-adda waxay warqad ka haysataa daawadan inay keentay wasaaraddeena caafimaadka daawadu daawo dhacda waayo iska dhaafe inay soo baxaan meesho lagu buufiyo aysan wax dambe ka soo dhalanayn wasiirka caafimaadka saxiixay طبعا wasaaradda caafimaadka soo saxiixay xilligaaga wasiiro badanaa jooga mar raba inaan magac sheego wasiiro badanaa isdaafay markaan soo qabanay shirkaddii daba galnay wasaaraddeeniya waxay soo saxiixday daawo dhacday oo beerihii Soomaaliya iska dhaaf beer oo hadda inay baxdee aysan meesho lagu buufiyay wixii markaan daba galnay waa fahan la'aan wasaaradda iyo wixii marka mushkilaad badan ilaa maas marka hadda culays intee leg ay ku keeni kartaa dejinta siyaasadda Soomaaliya iyo xasilinta amniga wallahi de marba marka dameysa waa la fiicnaanooyaa oo dabcan laakiin de waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka dib u dhigay ninka marka cadowga ah ee shabaabka ah hotel inta soo gala qarxinaya iyo ninka wasaarad jooga ee daawo dhacday saxiixaya si beerihii Soomaaliya lagu shubo midka warqad beena niman oo tuuga oo dalaaliina u saxiixaya warqad si Soomaaliya day loogu soo midka hub noogula deeqay oo khaldan ku qaadanaya commission oo dalaaliga leeshina macnaha dadkaas marka waa isku angalay dawladnimada ka duminayaan marka waxaan isleeyahay qaarkoodna fikrad xum ay ka tahay iyo khibrad la'aan iyo dawladnimo qaarkoodna waxay ka tahay tuuganimo musuqmaasuqu nooc ugu xunno waay macnaha inuu lacag dhaca ninkan wasiirku inuu lacag dhaco waxa ka daran saxiixiisa waxa uu ku haleynayo haddaan dabagalna lagu sameyn khibradna marka hore meesha maadaama aad ka soo shaqeysay arrimaha ciidamada militariga iyo nisaba sidee ku dhacday dhismihii ciidamada ama abaabulkii ama asaaskii ciidamada mar labaad la soo aasaasayay ilaa 2000 dawladii carta maxay sahaayeen caqabadihii ama waxyaabihii hortaagnaa ee ka dhismi laayeen waa mahadsan tahay su'aal fiican waaye ciidamada Soomaalida runtii dib u asaasintoodii Cabdiqaasin bilaabay Cabdiqaasin dawladdiisa markay timid dawlad shacabka ay rabaan ay laakiin nimankii hogaamiye kooxda waagaa jooga aysan rabin wuxuu Cabdiqaasin u yeeray ciidamadii hore oo odayaal u batay niman 20 sano oo 10 sano ku dhawaad marka wixii ciidamadii hore ka joogay aa lagu bilaabay dawladda Cabdiqaasin marka ciidanka ay haysato waxay u badnaayeen ciidamadii hore oo shaqay jiray iyo kuwa cusub oo dhalinyaro xilliga Cabdullaahi Yuusuf markii dawladdii iyo hogaamiye kooxeeda isku biireen waxaa dhacday in maleeshiyadii hogaamiye kooxeeda wixii markaa qoraysiday ciidamada lagu soo biiriyo oo wixii maxkamadu dalka qabsadeen maxkamaduhu wixii maleeshiya ay la wareegeen wixii maxaan ku idhaahdaa Cabdullaahi Yuusuf la socday oo kala yimid marba sibay ahaayeen marka ayagoo sida u ashaamuday Sheekh Shariif ayimid Sheekh Shariif ciidamadii maxkamta iyo wixii ciidamahaayo dawladii hore Cabdiqaasin ciidamadii hore kamid ah qaybta Cabdiqaasin qaybta Cabdullaahi Yuusuf wixii hadan la mideeyay oo ciidan laga dhigay markastaba marka ciidan aan isla jaan qaadi kara ma ahayn nin odaya oo sidii 70meeyadii loo shaqeey jiray fikirkiisu tahay waaxid maleeshiya oo qoriga sida loo rido la baray iyo darbiga sida loo galo iyo sida baaska loo xariyo jeexo mid kale maxkamadihii wadaadaho asna sidoo kale ah oo maleeshiya oo diineeda isla jaanqaadka marka uu adkaaday waagii Xasan Sheekh aan xusuustaa in uu la sameeyay daato iyo file iyo darajo iyo in guddi la qaado oo wixii la saxay oo goorma ciidamada ku soo biirtay in dhaqash khayr la hasiyo militariga aad u sax anaga nabad sugid way ka duuneed nabad sugid ciidanka inta badan la qoraayay
nabad sugidii hore Soomaaliya iyo dhalinyaro aqoon lagu xorey ahayd iyo kuwa oo dhalinyaro ah oo ayagana hub loo dhiibay soo waxay active u ahayd ayaga isla janqaadkeeda sahlanaada marka booliiska asaguna wuxuu u badnaa booliiska Malaysia kuma badnayn ciidamadii hore iyo dad dhalinyaro ah oo gadaal laga qoray marka waxaan isleenahay marba xeeray soo marayeen hadda waa macquul dawladdan hadda madaxweyne Farmaajo dabcan xoogaa dib u sixid iyo inay database sameeyaan iyo wax bay sameeyeen marka waxaan aaminsanahay culays daahitaana jira wax la qaban karo aan la qabanin muddo sax lagu qabanin laakiin horumar socda hadda Turkidu ciidanka ay tababarayso iyo ciidanka Mareykanku tababarayo iyo ciidamadaas kala duwan oo dawladaha kala duwan ay tababarayaan iyo kuwa hore caqabadaas jirta inay isla jaan qaadaan marka waxay u baahan tahay aan ku talinaa institution gaar ah oo isku dhafida ciidamadu waa laba heer marna maamulada iyo xamar ciidamada jooga la isku dhafaa marna ciidamada dawladaha kala duwan ay soo tababareen isku dhaf u baahan wata ma jiraan adi caqabado si gaar ah ku soo wajahay hadii ahaan lahayd beesha caalamka ama ajaanibtaba aan dhahno iyo hadii ahaan lahayd kuwa shakhsiyadeed intay ciidamada ku jirtay wallahi de waa caqabado way jirayaan mar haddaad ka shaqeynayso Soomaaliya ilaa inta askari ahayd طبعا ده انت عسكري ام بقى ولي تلناي culayska waa laga xigsanay laakiin de culayska xoogiisa waxaan dareemay marka aan taliyaha noqday nimanka ajnabiga ah ee maanta hadda jooga xalana jooga waa ka kibirsanayeen intii hadda yiin horta maxaa yeelay dawlad kasta Soomaaliya markastoo dawladnimadeedu ay soo kororto oo ay soo xoogaysatana doorkoodu waa yaraanaya marka way jirta dabcan dad oo fiican waa runtii been lama sheegay Soomaaliya gacan weyn ka geysteen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dawladaha Carabta Suudaan iyo waxaan ku raahdaa Imaaraadka iyo dawladahaas wax badan ay nala qabteen oo ciidamadeena dhisideeda iyo maxaan ku raahdaa iyo laakiin adiga wadanka wax la qabanaa marka haddaadan nidaamsanayn dhalinyarada la soo diraayo amba dadka dawlad waxna waa qofkay soo diraan dadka ay soo diraana dabeecada la imaana maadaama dal kala yaacsan ay u yimideen wax aysan ku metelayn dawladihii ay ka yimideen dabeecada kala duwan oo ayaga dabeecadahooda ah haday yihiin safiiro iyo haday yihiin saraakiilba waxaad arkaysaa waxaas ayagoo dalkii ku shaqaysanaya qaarkood dalkii waxay u yimaadeen eedoo waxba nidaamsanayn qofkii marka nidaam yar la yimaado dawlad iska dhiga maaga cadaway u arkayaan maxaa yeelay baar ay ku jireen ayaad ka bixineen waxyaabo badan marka waxyaabo ugu yaabka kamid waxa kamid ah hay'ad 18 sano dal ka shaqeynaysa oo gabar Jarmala ay madax ka eedo intelligence oo dawladaha kale ay ka qaataan xogta intelligence ayaa waxaan aragnaa wadanka ayadoo ka shaqeynaysa hay'ad waan baarnay waxay ka shaqeynayaan in sharciyeena noo soo baxdo ilaa ay heer madaxweynayaasheena ay ribooday ka qoraan hay'addi marka waxay ku leedahay Soomaali badan oo shaqeysa oo lug baabuur maanta hadii qaraxda waa loo soo qoraa laba beel hadii isdagaalantaan waa loo soo qoraa adiga riboodkii guud ee dalka oo hay'adihii wadaniga ah loogu tala galay ayay maaragtaa ka shaqeysataa dawladay ka gadataa institutions kale ka gadataa meesh maalinkii dhammaan marka u tagnay saraakiil waa helna xogteeda dukumiinti badan aan daabacnay oo ay ka qoreen Soomaalida iyo madaxweynayaasha iyo xafiiska madaxweynaha xataa ay ka qorayaan saraakiil aan u diray waxaan dhahnay qofka u taga soo wareysta sharciyada ay ku shaqeyso wadankan waa ka shaqeysaa yes dadkaas haday ku shaqeeyaan yes waxaan rabnaa sharciyada ku shaqeyso wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha waxa aad ka shaqeeyo dukumiintiga iyo registration aad haysato waa rabnaa maalinka markii loo tagay hotel Peace leeyahay bay deganeed saraakiisha markay u tagtay waxa la lagu jooga Soomaali waxay moodaba dadka xogta u hayay xogta u waday markii loo tagay waxa la yiraahday baasaboorkan adiga ma taha qofkan adiga ma taha waxaan rabnaa hay'adda waxa aad ka shaqeyso anaga waxaan asaas waxa aad ka shaqeyso baan u baahnaa sharciyadooda islaantii waxay rumaysan weysaba in dad Soomaaliyeed inta u yimaadaan waxa aad ka shaqeynayso waxa sharciyada aad u haysato noo sheeg inta kuma sanana waa hadashay dukumiinti waxay soo daabaceen 2 sano wixii riboodo ay dalka ka qoraysa la soo daabacay waxaan ribood adiga soo ma qorin maxaa u qortay yaa markaad waxaan ribood qorayna hay'ad dawladeed baa tahay Soomaaliya
ma dawlad kalaad ku soo diratayoo ogolaashaad ka haystaa Soomaaliya waxa aad ka shaqeynaysaa madaxweynayaal iyo xaasaskoodii baad wax ka qoraysaan iyo wax ugu dambeeyo waay gabadhii waxaan dhahnay xeer ilaalintaan la hadalnay waxaan dhahnay qofkaas waay dukumiintigaasaan haynaa booliiska idin keeni doona u yeera xeer ilaalinta baa u yeertay wasiirkayga amniga iskula dhacno wasiirka amniga meeshan Nairobi loogu yimid taliyahayga nabadsugadda waxa waaye saas waaye wasiirka amniga soo caad wasiir waxaan waa arin oo amni for security issue marka intaad ka imaanayso xeer ilaalintaan hawsha ma hawshaas anaha adiga marka waxa dareemaysaa marka wasiirka amniga yaa bareeshar ku haya dadka ajaanib toos xafiiskayga Soomaaliya ma gaarin inay sidaa u dhaqanto haddaanan hadda gaarin in aan dadka sida khaldan nooga shaqeysanayo oo missionis ka shaqeynaayo oo aan ku tuhmaynahay hay'adaas inay mararka qaar ka shaqeyso waxay soo tababartaa dad waxay ku soo tababareen miinada iyo miinooyinka sida loo sameeyo magaaladii ku soo deynay markii aan baarnay main action aan ku dacweynay main actionkii markii aan sii baarnay hay'adan inay ka dambaysan ogaan waxaan ku yiri dalkii aan taliyay nabadsugadda ka ah amnigiisa oo xogti xafiisyadii dawladda la jaasuusayo oo magaaladii qaraxeeda laga shaqeynayo haddii aan la xisaabtami karin qof oo xeer ilaalinteena aysan wax ka weydiin karin meeshaas dagaal weyn ay soo wajahay in wasiirkayga iyo wixii kale ajaanib ah iyo anigana leeyahay Soomaaliya wariyaan dhalinyaraha tahay Soomaaliya meel aysan gaarin baad u wadaa war meeshaan u wadaaba saxan ku dhahay meeshaan u wado Soomaaliya inay meeshaas gaarto ayaan rabaa waan aaminsan aniga marka dagaal badan waay marka adiga dagaal badan oo aan dawlad siyaasadeed ka turjumayna qofka markaas meesha jooga oo wadankii yareysanayo hay maalin waxa ay sargaal oo dhahaya taliyo waxa dharbaahay nin alifla oo ciidanka tababaraya anoo sargaal oo ciidanka u qodbeena waa iimo dharbaahay qoladii oo ka tirsanaaba waxaan ku iri sargaalkii ciidanka hogaaminaya baa ciidanka hortooda waxa ku dharbaahay nin alifla oo adiga kamid ah ninkaas wadanka saara si oo niyadii ciidaman xukuma ciidankii oo sargaalkii ayaga xukumaaya hortooda oo ku dharbaahay nin alifla ah suuragal maaha in oo sida ay wax ku sii socdaan police ninkaas alifla ah waxa aan dejino mana rabno dad inay nacaawiyaan u yimideen baa tihiin ma rabno in dhib kala dhaco dadkan Soomaali waaye qabbay leeyihiin waxba dhici kara bili gacan qaada dhici kara waxaan ka codsanaa ninkaas mar dambe iyo askarta hor imaani waxaan rabaa inuu baxo dagaal badan oo kasbaday sidee u dhihi kartaa war sida war aniga taliyana mas'uul baan ahay dalkaanan mas'uul ka ahay marka waxa dareemaysaa marka waa waxyaabo fara badan oo aan la tiri karin adiga marka bareeshar lagu saaro bareesharka marka lagu saarayo waxa laga yaabaa madaxweynahaaga in ninkan falka sameeyay sargaalka ah oo wadankan u jooga